السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعالي هالكات إقلا سعطان ومقال كسو دوادا جنال كينا مانتي وحان إذين ودا ياواي عدو هورتو وفر بدن يهي بني آدم هدانا عدو بدن يا ليانا عدو قوين وإلهي قرآن كيسكو شيغي إبليس iyo awlaadiisa waay cadawyo kala jira sida maalkaaga oo kale inta sida awlaadaada mararka qaar in aygan cadawgaaga noqdaan laakiin cadawga maanta ka hadleeno waxa waay cadow banaanka ma aha cadow gudahaaga ku jira ka hadleena maanta yaa waa cadawgaaga yaa waay sees ugu guuleysan kartaa haddii cadow la sheego waxa laga yaabaa horta inay kugu soo dhacaan heblaay ama hebel oo shalay wax xun dhahay ama shalay wax xun igu sameeyay amba ayaga oo anti igu ahoo kaleente ma ahan hebel iyo heblayaal kulmay oo adiga xataa kuu kulmay oo kuu tashtay ama xumaan kula soo bareeray inta ma ahan cadowgaaga ama heblaaya isku dhacdeen oo kaleento isdagaasheen oo kale cadowgaaga ma aha cadowgaaga gudahaaga waay adiga nafsadaada waa cadow kale malihid kaas haddaad ka guuleysato cadowga banaanka asagana waa ka guuleysatay cadowgaaga gudahaaga waay naftaada waay tan kuu jebinayso cadowga banaanka ayada waay tan markaa muraayada taagan tahay ku dhehayso waxaas ma samayn kartid cadowga kaas waay markaa muraayada taagan tahay ku leedahay waxaas ma samayn kartid waxaas ma tihid daciif ayaa tahay cadowgaaga waa kan tan qasbeysa ama keenaysa in lagugu amar taagleeyo waayo gudahaaga waxay ku tusinaysaa inaad daciif tahay waxay kuu jebinaysaa cadowgii banaanka ee kaas haddii aad ka guuleysatid cadowga gudahaaga iyo cadowga banaanka waxba ma kaa qaadi karo aad u sheegtid inay leedahay sifo walba oo wanaagsan ama tilmaan walba oo wanaagsan haddaad nafsadaada aad u sheegtid oo tiraahdid awood ayaad leedahay waad qurux badan tahay daciif ma tihid cadowgaaga waxaa waaye kan gudahaaga ku jira waaye asagaa wuxuu kuusoo jiidayaa shakhsiyaad xun asagaa kuusoo jiidaya wuxuu u ogolaanaya inuu kugu amar taagleey adoo xoog ahaan inay ka xoog badan taha laga yaabaa kaas haddaad ka guuleysata cadowga banaanka ee waxba kuma dhimi karo nafsiin waxaa laga yaabaa inuu ku bahdilaa laga yaabaa cadowgaas gudahaaga marka kaas haddaad kasoo guuleysato kan banaanka waxba kuma dhimaayo u sheeg mar walba inaad qiimo leedahay mar walba u sheeg daciif ma tihid ku dheh mar walba inaad wanaagsan tahay u sheeg marka cadowgaaga haddaad ka guuleysato ee gudahaaga cadow banaanka ma ku imaanayo markii kan gudahaaga kasoo guuleysatay daciifnimadiyaa soo dishay waxaa soo dishay kalsooni daradiyaa soo dishay ma isku kalsooniti wax walba wuxuu ku leeyahay maya ma tihid maya negative uu kula taagaya markaa muraayad taagan tahay ma qaban kartid kaas kasoo guuleysa kaas haddii aad ka guuleysatid cadowga banaanka waxba maa waa ka guuleysatid waxaa aragnaa dad abuse lagu sameynaa abuse mental lagu sameynaa maskaxda laga heesto waxaa laga yaabaa qofkan kale inuu asaga ka awood badan yahay awood ahaan laakiin maskaxdiyaa laga qabsaday yaa u jabiyey cadowga gudihiisa u jabiyey waxaa arkaysa asoo lagu amar taagleenayo adigoo ka xoog badan qofkii uu kugu amar taagleenayo waayo ugu ogolaanaya inuu kugu amar taagleey adaa ka awood badan daciifa iska dhigin gudahaaga u sheeg cadowga gudahaaga soo dil ee daciifnimada muujinaya mar walba iska dhig qof adag oo waajaha bulshada maanta ma rabto qof daciif oo gudaha daciifka oo cabsanaayo oo isliidaayo ma rabto marka adiga haddaad isliidid oo cabsatid dhibaatada aday kusoo gaaraysaa marka cadowga gudahaaga ka guuleyso haddii aad ka guuleysato kan banaanka waxba kaama qaadi kara xataa haddii uu jiro cadowyo banaanka animo u maleynaa cadow banaan inuu jiro cadowga ugu weyn ee nolosheena kan gudaheena waay subaxii markaa muraayad istaagtid ku dhahayo waa xun tahay waxaas ma qaban karti waxaan ma ka bixi karti wax walba ku weyneynaya wax walba oo yariis wax weyn oo kaaga dhigaya haddii problem ama dhibaato ay ku haysato marka cadowgaas kasoo guuleyso see ugu guuleysan kartaa waay cadowgaas waxaa ugu guuleysan kartaa markasta adiga oo samee horumar nafsaani horumar jismiyan oo jismiga samee mar walba ishorumari nafsadaada baro maalin walba wax cusub baro noloshaada mashquuli u sheeg markaa muraayad taagan tahay inaad tahay qof ilaahay quwad siiyey inaad ahayn qof daciif oo lagu amar taagleyn karo ha ogolaanin dadka mentalka inay kaa qabsadaan rabaan ha ogolaanin maya qofka adiga maskaxda kaa heysanayo adigoo kaleenta waay asaga buu xanuunsanaya qofka adiga aad ka cabsanaysid asaga bini aadan waa jirkiisa dhiig iyo xididaa mara asagaba sidaadoo kale u xanuunsanaya
marka ha ogaanin, ha u sheegin nafsadaada inuu kaa awood badan yahay ama uu kaa xoog badan yahay ama uu kaa caqli badan yahay. maya, adiga caqligaa leedahay kugu filan aad ku noolaatid. gudahaaga kaa soo dil, cadowga gudahaaga soo dil ee kuu soo jiidaya inay ku ogaarsadaan dadka xunxun ee maskaxiyan ayagaba xanuunsan. waayo xanuunsan yihiin haddaad aragto qof rabo inuu ku amar taaglayo, qof wuxuu rabaa qof inuu maskaxda ka qabsado maanta o dhan wuxuusan ahayn oo ku tilmaamaya markuu maqan yahay. wax walba wuxuu soo abaabulayaa guruub, waa laisku heesa. wax walba aragnaa anaga maanta, qaarkeen waa soo mareen, aniga naftirkeyga waa soo maray, mental abuse waa soo maray, abuse aad u xunaa soo maray. haddii aan soo mari lahayn aniga maanta ma ku dhiiradeen inaan hortiin imaado oon hadlo. laakiin waa kasoo gudba alxamdulilah. abuseka aan soo maray maanta ma rabo inaan ka sheekeeyo, man laga yaabo inaan ka sheekeeyo, yani wax tegay waay. laakiin wuxuu iga dhigay aniga caaliyo ayuu soo saaray oo ah maanta qof isku kalsoon, isku filan. waxaan aaminsanahay inaan ahay qof isku kalsoon, isku filan. wax walba haddaanan haysanin iyo haddaan haysto, waxaan aaminsanahay rabbilcaalamiinka oo keliya inuu xaq igu leeyahay, inuu asaga i adoonsado, adoonsi kaleenta aanan gelaynin. yani marka adigana ha u ogolaanin nafsadaada qofka adiga rabo inuu kugu amar taagle. qof adoo kale waa waxba kuma dheera, daciif waa asaga naftirkiisa, meeluu ka daciifsan yahay jiro. marka ha u ogolaanin cadowga gudahaaga ee kuu jebinaya kan banaanka ah kasoo guuleyso. mar walba ha u ogolaan qofna inuu kugu amar taagle, qofna inuu ku liido, qofna cadowgaas gudahaaga ee asagaa wuxuu leeyahay waxaasaa tahay, gadaaloo kuu riixaaya. waa kusoo dhiiranaa cadowgii banaanka ahaa ee asiga maskaxiyan waa xanuunsan yahay. ilan cadowga banaanka ee rabo dadka inuu gumeysto, dadka rabo inuu maskaxda ka qabsado. qof caadi ee maahan, qof u baahan waa in la caawiyo, laakiin ma kaa maqlaayo. asiga wuxuu isku haystaa sax inuu yahay, adiga warwaa marka inuu ku gumeysto oo maskaxda kaa qabsado. kan gudahaagiya wuxuu soo jiidayaa markaad daciif tahay kii banaanka. lano kan banaanka cadowgaas aan ka hadlaayo ma rabo qof isku kalsoon, ma rabo wax ma ka qaadayo, maho qof isku kalsoon, qof aan cabsaneynin, qof aaminsan gudihiisa inuu awood leeyahay oo quwad leeyahay. ma rabo, wuxuu rabaa qof oo boocbooc oo rabaa oo hash oo wuxuu rabaa hajabaayo oo rabaa oo daciif oo markii horeba gudihiisa aaminsan inuu asaga waxba ahayn, oo daciif yahay, oo iska celin karin, oo wax suubi karin, oo gudihiya waxaas ka aaminsan yahay. marka cadowgaas markaad muraayad taagan tahay ku dhahayo wax walbo niyada kaa dilaayo, kaas kasoo guuleysa. haddaad kaas kasoo guuleysato kan banaanka waxba ma kaa qaadayo, ma ku imaanayo. muxuu kaa qaada horta? ma kusoo dhiiranayo inuu soo galo xuduudaada, because gudaha banaanka waxaad gudahaaga ka aaminsantahay ayaad banaankii ka muuqdo. qof walba wuxuu ujeedaa heebadaada, ujeedaa iyo awoodaada banaanka ayuu ka arkayaa, adoon qofna caaneynin, qofna dhaawaceynin, qofna dhibaateyneynin. cadowgaas kasoo guuleysa. cadowga gudahaaga se ugu guuleysan kartaa nafsadaada horumar. mar walba wax baro, wax cusub baro, maalin walba noloshaada wax cusub baro. haddii dhibaato ay kusoo wajahdo ha u tagin dadka maskaxiyan xanuunsan inay ku caawiyaan, leanna ma ku caawinayaan, waa kugu wiirsanayaan ama waxay ka dhiganayaan wax ay beri ay kugu handadaan. wax iyo ha siinin fursad, ha siinin wax inay kugu handadaan oo kale ha siin. xataa haddii ay dhacdo in wax lagaa haayo amba wax lagugu handadaayo amba wax ayaga ay sameeyeen, ha ka cabsanin. wax walba bini aadan dhan wuu qaldamaa. xataa haddaad qalad gashid, qaladka rabbilcaalamiinka kaa cafinayo soo noqo. hadduu ku dhow waxaasaan ka haaya, waxaasaan kugu handadaa, mawduucaas isna soo hadli doonaa oo aad u bati maanta dadka abuuska lagu sameynayo. keenaa dhehe waxaad haysaa samada wixii ay soo deyso, arlada waa qaada. ha cabsanin, cabsida iska saar, kalsooni darada iska saar. noqo qof adag, noqo adag. yani dhibaatooyinka waajaha, ma ahan adag inaad naxariista ka tagaysa, laakiin waajaha dhibaatooyinka. yani dhibaatooyinka ha ka gambanin, gadaal ha ugu baqanin, oo kusoo dhibaatooyinka adiga kusoo gaara. mar walbo noqo qof ka hortagta ee taqaana say ugu hortagto, say ugu guuleysato taqaana. marka cadowga gudahaaga kasoo guuleyso. kaas haddii aad ka guuleysatid, cadowga banaanka inuu wax kaa qaad iska daayo, ma kuugu soo dhiiranayo xataa inuu soo galo xuduudaada. marka waxaan jeclaystay cadowgaas banaanka oo gudaha in la iska ilaaliyo. maanta waxaan jeclaystay mawduucaas inaan ka hadlo, waayo cadowgaas dad badan ayuu hadda heystaa oo jibinaya oo maalin walba aan aragnaa. marka cadowgaas ha isku jibinin, cadowyada kaleento waxba makaa taraayaan. cadowga nafsadaada ay kasoo guuleyso. mar walba ilaahaygaa ku xirno. qofka ilaahay ku xirnaado wax bini aadan oo kaa qaadayo mal. mar walba ilaahay ku xiran tahay, noloshaadan aad horumarinaysid,
adaa isku mashquulsan, adaa wax baranaysid, adaa wax ma fiirinaysid cadowgii banaanka ah, ma haysid jaanis, ma haysid kii gudahan aad u sheegtid inaad leedahay awood, inaad leedahay karti aad wax ku qabsan kartid, xataa haddii duruuf ay jirto inaad ka baxaysid aad aaminsan tahay. aamin nafsadaada ku kalsoonow inaad wax walba aad sameyn kartid. marka maanta waxaa jeclaystay cadowgaas gudaha ah inaan idinkala dardaarmo. marka ha isku jebin cadowga gudaha ah, kaas waa muhiimadda ee adiga kugu dhex jiro. marka maanta intaasaa jeclaystay inaan idinla qaybsado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaa